بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسطوطل، إساك نيوتن، جوهانس كابلر، جيمس وات، تشارلز داروين، كوبرنيكاس. علومta dabiiciga markii aad dhiganayso heerkii aad doontid aad ka joogtidbe waxaad arkaysaa iyada oo rag aan soo tilmaamay iyo rag kale oo galbeedka u dhashay oo iyaguna yaqaanay cilmiga dabiiciga la qaada dhigay taariikhdooda iyo waxyaalihii ay ku soo kordhiyeen ama ku soo biiriyeen cilmiga dabiiciga balse ma ogtahay inay jireen saynisyahanno muslimiin ah kuwaas oo iyaguna ku soo biiriyay cilmiga dabiiciga waxyaalo ilaa hadda ay bini aadamku intifaacsadaan haddaba muuqaalkan ayaan idinkula wadaagaya 10 saynisyahanno oo muslimiin ahaa. أبو علي حسن ابن هيثم waxa uu ku dhashay magaalada Basra ee dalka Ciraaq 96kii miilaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada Qaahire ee caasimadda Masar 1040 waxa uu qoray in ka badan 16 kitaab oo ku saabsan xisaabaadka, injineeriyada, caafimaadka iyo cilmiga xidigiska. Abu Hassan Ali oo loo garan og yahay Ibn Nafis waxa uu ku dhashay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Syria 1213 taariikhda miilaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada Qaahira 1288 waxa uu ahaa caalim muslim ah ku xeel dheera arrimaha caafimaadka waa caalimkii ugu horeeyay adduunka ogaada jiritaanka habka wareegga dhiigga sidoo kale soo bandhiga xubnaha jidhka ee kala duwan iyo mid waliba shaqada uu qabto. Jaabir bin Xayaan waxa uu ku dhashay magaalada Toos ee dalka Iiraan sanadkii 721 ee taariikhda miilaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada Kuufa ee dalka Ciraaq 813 waxa uu ahaa caalim muslim ah kuna xeel dheera culumta kiimikada, dawooyinka iyo cilmiga xidigiska waxa uu qoray in ka badan 18 kitaab oo la xiriira hal abuuro aan isaga looga horeyn oo la xiriira kiimikada, macaadinta iyo xidigiska. محمد ابن موسى الخوارزمي waxa uu ku dhashay magaalada Khawarizm ee dalka Uzbekistan 782 taariikhda miilaadiga waxaana ku geeriyooday magaalada Baghdad 847 waa caalim muslim ah oo xilligii boqortooyada Cabbaasiyiinta mas'uul ka ahaa maktabadii la oran jiray hoyga xikmadda oo aasaasay amiirkii la oran jiray Al-Ma'muun looguna talagalay inay noqoto maktabad lagu ururiyo buugaagta laga soo tarjumo luqadda Greek. Al-Khawarizmi waxa uu qoray buugaag badan oo ku saabsan xisaabta aljabrada oo loo tarjumay luqadaha Ingiriiska iyo Talyaaniga sidoo kale waxa uu sameeyay markii ugu horeysay khariirada adduunka isagoo ay la shaqeynayeen in ka badan 200 oo howlwadeen ah. Abu Ali al-Hussein ibn Sina waxa uu ku dhashay magaalada Afshona ee dalka Uzbekistan 980 taariikhda miilaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada Hamadan ee dalka Iiraan 1730 waa caalim muslim ah oo culimada muslimiintu ay u yaqaaniin Sheekhul Ra'iis oo ay uga jeedaan culimada ka ugu sareeya halka kuwa reer galbeedku ugu yeedhaan amiirkii culimada caafimaadka waxa uu ahaa dhakhtar ku xeel dheer culumta caafimaadka waxa uu qoray in ka badan 20 kitaab oo isugu jira caafimaad, xidigis, macaadin iyo xisaab. Abu Nasr Muhammad al-Farabi waxa uu ku dhashay magaalada Farab ee dalka Kazakhstan 872 miilaadiga waxa uu ku geeriyooday magaalada Dimashq 950 waa caalim muslim ah oo ku xeel dheera caafimaadka sidoo kale waxa uu caan ku ahaa falsafada waxa uu turjumi jiray kutubtii uu qoray Aristotle ilaa Farabi loogu magac daray macallinkii labaad yacni Aristotle ayaa ahaa kii koowaad isaguna kii ku xigay. Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas az-Zahrawi waxa uu ku dhashay magaalada Qurduba ee dalka Spain 936 miilaadiga xilliga ay muslimiintu ka talinayeen gobollo kamid ah dalkaasi wuxuuna ku geeriyooday isla magaalada Qurduba sanadkii 1013 waa caalim muslim ah oo ku xeel dheera caafimaadka gaar ahaan qalliinka, suuxdinta iyo tolliinka waxa uu dhaxal ahaan uga tagay mawsuuca ama encyclopedia ka kooban 30 juz. Abu Hassan Ali al-Mas'uudi waxa uu ku dhashay magaalada Basra sanadkii 896 miilaadi wuxuuna ku geeriyooday magaalada Qaahira 950 waa caalim muslim ah wax badan ka qoray anthropology deegaanada iyo dadyowga uu la kulmay intii uu dhalmarista ku jiray sidoo kale waa caalimkii ugu horeeyay ee dunida daaha ka qaaday waxa loo yaqaan hidawade ama genetic drift. Abu Rayhan Muhammad Ahmad al-Bayruni waxa uu ku dhashay magaalada Bayroon ee dalka Uzbekistan 973 miilaadi wuxuuna ku geeriyooday magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan sanadkii 1050 wuxuu ahaa caalim muslim ah dhulmareen ah ku xeel dheera falsafada, cilmiga geologiga, dawooyinka, xisaabta, juqraafiga, xidigiska iyo tarjumida buugaagta luqadaha qalaad ku qoran wuxuuna qoray in ku dhow 10 buug
oo ah culum kala duwan. Abu Yaxya Zakariya al-Qazwiini waxa uu ku dhashay magaalada Qasviin ee dalka Iiraan 1203 miilaadi wuxuuna ku geeriyooday magaalada Baghdad 1283. waa caalim muslim ah oo ku xeel dheeraa culumta taariikhda, juqraafiga, xidigiska, dhirta iyo xawayaanka. intaasi waa ay ka badan yihiin culimada muslimiinta ee raadadka muuqda kaga tagay horumarka aqooneed ee dunidan aan ku noolahay, waxayna marag iyo caddayn u yihiin in kasagoo ahmiyadda uu islaamku siiyey aqoonta iyo dadkeedaba, in haddana marka ay muslimiintu ay helaan duruufta ku habboon ay si cad uga dhex muuqanayaan horumarka aqoonta iyo hogaaminta hal abuurka.